marti noogu ah Professor Axmed Samatar oo ka soo noqday dhinaca iyo Somaliland haday noqon lahayd inuu magaalada Hargeysa ka sii baxay oo aad Boorame iyo Ceerigaabo iyo runtii tuulooyin badan waxa laga yaabaa in Professor Axmed Samatar uu freeway ama waxa loo yaqaan wadooyinka waaweyn ee Mareykanka dhex mashaaxi jiray laakiin markii uu tagay bal dhinacay waqooyiga iyo buurihii baawur noocay ayuu raacay muxuu halkaasi kula soo kulmay waxa laga yaabaa inaad qaarkiin ka daawateen internetada iyo idaacado badan ay waraysiyo ka qaadeen laakiin gobolka Minnesota maanta uu deganaa nuguna soo noqday runtii waxaan doonaynaa live na barnaamijkan aad u daawanaysaan haday noqoto internetka haday noqoto runtii inaad naga daawanaysaan gobolka Minnesota idinka waliba ay tahay Ramadaan dadkuna ay wada sooman yihiin wax runtii jeclaan lahayn professorka inaad nala soo dhaweysaan runtii oo welcome back adigoo nabad inaad ku soo noqotay hoygii aad nooga tagtay ee Minnesota ku soo dhawaad aad baad u mahadsantahay walaal aad baad u mahadsantahay Axmed saad ogtahay waxaad ka tagtay waqooyiga America adigoo runtii u kacay dhinaca gobolada Somaliland magaalada Hargeysa markii aad diyaaradda ay degaysay maxaad dareemaysaa waxaan dareemayay jiriirico si gooni ah anigoo muddo badan ka maqnaa Somaliland meelaha qaarkood waligay aanan hore u arag Ceerigaabo kale waligay hore aan u arag burca habeen noloshayda habeen aan seexday laakiin wadanka aan ka maqnaa muddo dheer Gabiley oo halkan ku dhashay waxaan ka maqnaa ugu dambeysay 1989 ayaa ugu dambeysay marka jiriirica ku galaysa adiga oo aan hubin waxa ka hor iman doona haddana jirkaaga iyo maskaxdaada iyo qalbigaaga iyo shucuurtaadu ay soo celinayaan dhulkii aad ku dhalatay sidoo ahaan jiray dadka aad xusuusan tahay qaarkood ay dhinteen qaarkood ay nool yihiin kuwii aad soo wada korteen gabayadii timacade heesihii geedihii aad hoos joogsan jirtay kubadda halkaad ku ciyaari jirtay markaad Amuud Secondary-ga ku jirtay amba Sheekh aad tartanka ugu tagtaan kubadda waxyaabo badan baa maskaxdaada markiiba soo galiya markii diyaaraddu soo fadhiisanayso marka shucuur gooniya ilmo gooniya wadnaho si gooniya u damqanaya ayaa ku soo galaysa markaad ka soo daadagtay diyaaradana dhulkii aad aragtana iyadana siday ku taabanaysaa waa wax lagama sheekeyn karo mana sifayn kartid adiga unba garan kara shucuurtaas waxay tahay iyo jiriiracada ku galaysa waqti aad maasatay xamar markaa ka degtay adoo musharaxa Hargeysa markaan ka degtay xamar markii hore aad ka degtay adoo musharaxa marka dambe Hargeysa aad ka degtayna shucuurtaadii way dhaaftay xataa waxa sawirada qaarkood ku jira adigoo shuminaya dhulkii hooyo xagee arintaas ka qabsan lahayd mana dhulkii shumiso iyo dhinacan xamar xamar markaan ka degay anigoo musharax xisbiga heel qaran oo ah intii la socotay unba og iyo intii airportka nooga hor timid iyadana waan dhunkaday dhulka airportka magaalada Muqdisho dhulkayga waan dhunkaday laakiin dad ballaaran oo ka hor yimaadiyay iyo television iyo radio socda iyo waxaas ma jirin oo qof iska caadi ah oo yimid oo kale umbaad ka mid ahayd Hargeysa muuq gooniya iyo Berbera muuq gooniya ayaad ku leedahay aniguna aan ku yeeshay marka laakiin arinta dhul Soomaaliyeed inaad joogto iyadana waan dhunkaday tanna waan dhunkaday laakiin si gooniya ayay Berberiya Hargeysa ay taabanayaan oo aad dhulkii aan ka yimid ummadii dhashay ay ka timid ay ku nool yihiin si gooniya iyo xamaasad siyaasadeed oo aan si gooniya ugu damqanaya imika dadka ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliland absolutely waqti airportka markii aad dhaaftay laba siyood baynagu weegeena dhinaca xukuumadda marka briefing miyaasisiiseen ma ku weydiiyeen why you come maxaad u timid su'aalo noocaas oo kala casuumad baa waxaan ka sii horeysay oo warka waanu isla ogeyn aniga iyo madaxda Jamhuuriyadda Somaliland waanu isla ogeyn casuumad baa ka horeysay ana waan aqbalay aniga qudhayduna waxaan tegideyda ka dambeeyay aniga oo gartay haddii Soomaali weyn hawsheedii lagula garan waayay 20 sanadood iyo in ka badanna adidid kaaga dhamaaday hadalna kaaga dhamaaday shaqana kaaga dhamaaday laakiin lagula garan waayay markaad bal dadkii aad ka timid noloshooda inaad soo ogaato waxay ku sugan yihiin maskaxdoodu siday tahay waxay qabsadeen intuu leeyahay waxaad la qaban karto kaalinta aad ka gali karto waxa soo dhan ayaa ka dambeeyay aniga tegideyda Somaliland
wax lagu farxana waan soo arkay markaan airportka berbere ka soo degnay eenu dadkii intii soo dhaweynaysay aanu is aragnay diyaarad kale la nagu soo qaaday Hargeysa aanu nimid markiiba Hargeysa garoonkeygii dadkii ay buuxaan de qof maalintaa joogay baa garan kara siday ahayd aniguna de si aan u macneeyo amba aan u sifeeyo kelmadaha Soomaali amba Ingiriisi waxay doontaa noqotay ma gaari karaan halkaas laakiin ma had ilaahay ayay noqotay qof dalkiisii iyo dadkiisii u yimid baan noqday iyaga ay soo abaabulay dawladii waxay waday ma aha dawladdu waa kamid bay ahayd laakiin dadkii Soomaaliyeed ee Somaliland u dhashay ee Hargeysa deganaa iyo Gabil iyo Boorama iyo Ceergaabiya maxaan ku raayay Berbere iyo Saylac iyo Boon iyo Kalsheekh iyo Garadag iyay ahaayeen iyaga ay soo dabiray marka sidaas aan ku tagay casuumad aan oo aqbalay iyo isfaham aan taariikhda isla fahamnay mustaqbalka isla fahamnay waxa jirta professor Ali Khalid Galeer sidoo kale ayuu isna dhulkii mar u tagay wakiil maamulka sameeyay khaatumo ka sameeyay waxaan isleeyahay professor Axmed Samatar mala isaguna Boorame intuu tago iyo isagana mala de khaatumatu iyo ka sameyn doona marka adigu waa tagtay waa soo booqatay waana ka soo noqotay adigu waliba u gudbay meelo badan de professorku waxa laga yaabaa inuu ku ekaan kaliya dhulkii ay degeen soo liisanayay laakiin soo ilaa Ceergaaba ilaa dhulka oo dhan baad socotay intii marka aad soconaysay iyo dadka aad la kulmaysan laga yaabaa dad inay kugu hindisay lahayd shirar gooni ama u qabanaysa dadka Boorama degan ma tolo maxaad sameyn doontaa anigu marnaba kumaan hamiin waan gartay imikana kuma hamiin waan gartay mustaqbalkan u malayn maayo inaan ku hamiyo in Somaliland la kala googooyo oo intaan tago galbeed aan wax la yiraahdo awdal state oo kale aan anigu abaabulo horena ugumaan tala jirin imikana kuma tala jiro mana aaminsani inay tahay siyaasad soconaysa taas anu waxaan qabaa dadka Somaliland u dhashay wadan bay ahaan jireen intii 60kii ka horeysay wadan bay ahaayeen gobonimo qaatay oo Soomaalidii kale ku soo biiray Italian Somaliland ku soo biiray xisaabtaas markay socotay in ku dhow ilaa 1992 waxa la gartay in la isla fahmi waayay unionkii sidoo ahaan jiray inaanu soconayn burburkii baa yimid anigu waan dirsay waxaanan aniga qudhaydu arkay qaladaadka ugu waaweyn ee Soomaalida siyaasadeeda keentay inay burburto waxa kamid ah xukun dawladeed in monopoly ay ku yeelato dadkii Soomaaliyeed ee koonfur ka yimid inay ku yeeshaan oo ilaa maanta aan lahayn qof reer waqooyi oo madaxweyne jamhuuriyadda Soomaalida ka noqda waa 53 sanadood weey lama ay ilaa maanta wax laga irdoobo weey waxaas oo laga tago ay mudan tahay ayaan ugu qabaa waan ku dadaalnay inaan taag dawadeeda raadino oo aanu dadkii musharaxiintan kamid ahaa kaliya ma dad kale way jiraan aniga xitaa iga aqoon badan oo iga daadoodu iga weyn tahay oo amba iga yar oo iga wanaagsan oo iga karti badan way jiri karaan oo Somaliland laakiin waxa dadkii Somaliland looga laayahay madaxda jamhuuriyadda Soomaalida inay ka muuqdaan 53 sanadood waa su'aasha ugu weyn ee maanta Soomaaliya horta laan anigu qaba marka anigu umaan tagin furfur Somaliland umaan tagin waxaan u tagay iyadoo dhan inaan soo arko iyadoo dhan waxay qabsatay inaan soo arko iyadoo dhan waxa ka dhiman inay qabsato ay u baahan tahay mustaqbalka inaan soo arko inaan arrimaha ka hadlo aan doodeeda ka qayb galo ilaan qofka u dhashay baan meesha waan ahay danta laascaanood inaan ka hadlo danta maxaan ku raahayay aan ka hadlo boohoodle aan ka hadlo danta Saylac iyo Boorama aan ka hadlo danta Garadag iyo Ceergaabo iyo Berbere iyo Burco aan ka hadlo laakiin anigu waxaan aaminsanahay isku haynta Somaliland inay tahay shay mudan in xoolo iyo karti la geliyo cusub waliba ayaan aaminsanahay waa gartay Axmed saad ogtahay waxa ka soo jeeda gobolada Awdal dhinaca maadarkan waxa ka soo jeeda gobolada Hargeysa hadii loo eego dhinacii goboladii Sool iyo Sanaag iyo Sool iyo Cayn iyo Buuhoodle iyo Maadan tagin marka labada qolada ayaga maxaad ku ilowday hadii su'aashaadu tahay madirku halkay ku noolaayeen baa tagtay waqooyiga hadii su'aashaadu tahay waa su'aal haboon in la isweydiiyo oo anigu ma qaadanayo in meel ka dhac tahay marka waad ku mahadsan tahay
laakiin aniga mabda'aygu horta weligayba mu ahayn mid qabiil ku dhisan weligeedba mu ahayn tolnimada iyo qabiilkaanu beri horaan cilmi ahaan u kala saar waana qoran tahay oo dee inan ka imid magaalada Gabriel la yidhaa inan dad Samaroon la yidhaa iyo dad Isaaq la yidhaahaa inay dhaleen jadka dad mana dafiro waanan ku faanaa ceebna maaha laakiin ceebtu waxay timaadaa qofku marka uu qabiilka ka dhigto license xadgudub iyo sharci daro iyo cadaalad daro iyo been iyo xaasidnimo waxaas markay gasho ayay tolnimadu qabiil noqotaa laakiin tolnimadu waa dad ilaahay meel ku wada abuuray oo isdhalay oo dantooda fahmay iyaguna wax qabsanaya iyagoo is ogol adduunyada kalena la heshiinaya way tolnimadu marka anigu aad baan ugu faanaa in dadkaygu ay ka yimaadeen galbeed iyo Gabriel iyo Hargeysa inta u dhaxaysa inay ka yimaadeen waajibka ay ugu leeyihiin inaan garto waajibka iyaga lagu leeyahay inaan garto iyagana garansiiyo weeyi waanan tegey bariga oo dee Ceerigaabo anigu waxaan qabaa inay tahay for example magaalo iyo degmo ay u dhan yihiin communities kala gadisan oo reer Somaliland oo habar Yoonis ay degan tahay oo habar Jecel degan tahay oo dhulbaanta degan yahay oo Warsangeli degan yahay oo Soomaali kalena ay degan tahay oo reer waqooyi ay degan waana la sheekaystay dadka degmada ku nool waan soo aragnay sida u kala gadisan waan soo aragnay degmada aanan taginay Somaliland iyo waxa weeye Bohol iyo Laascaanood iyo areadaas weeyi oo aad u jeclaa inaan tago oo dad badan ka aqaano inkastoo macallimiinteedii qaarkood way dhinteen Allah naxariiste Yusuf Bookaxi ay kamid yihiin ay degmada ka yimaadeen aniga meel gooniya ay gaga taalo aabahay saaxiibada ugu waaweyn oo lahaayeen dadka degmada ka yimid Laascaanood iyo Bohol iyo degmada ka yimid BBC dadkii wax igu baray aan aad uga faa'iideystay dad kamid halka ka yimaadeen oo Cismaan Xasan Xaaji Umar oo kamid yahay ma moogani aadna qalbigayga way ugu dhowdahay laakiin de waxa timid arrin practical ah oo noqotay ma suurtageli kartaa halka inaan tago iyada oo aan sidaan doonaya aan u tagi karayo oo hadda intaan tago sida magaalooyin kale baan u tagay inaan dadkii la sheekaysto oo aan iyagina u warramo iyaguna ii warramaan oo qadiyadooda soo fahmo waxay ku nool yihiin aan soo arko laakiin waxa la yiri halka waxa ka taagan tension weyn baa ka taagan oo wada ognahay ciidamada is horjooga marka waxa la yiri nabadgelyadii baa dhibaato ah halkaas hadii aad doonayso marka deena tagto ku adkaysanayso ciidan baa lagu raacin aniguna way noqon weyday inaan meel tago oo dad soo siyaarto aniga ciidan wato wixii aan doonayay bay yaanay suurta gelin kareen oo ah si wanaagsan in loo sheekaysto oo la wada hadlo oo la kaftamo oo runta la isku sheego marka waxaan rajaynayaa waqti kale haddii alla ka dhigo waan ku noqon doonaa degmada Somaliland inay suurta geli karto inaan tago Axmed Professor Axmed Samatar halka wadan kugu wareysanay inaad ka baxday xildhibaannimadii ka baxday maanta waxaan u maleynayaa halkan kugu wareysan doono Hiil Qaran xaqad ku weyn Hiil Qaran waa xisbi qiimo weyn leh anigu madaxdeeda kuma jiro musharax baan u ahaa laakiin madaxdeeda kuma jiro dadkii aasaasay waan ka mid baan ahaa waa xisbi qiimo weyn leh waa xisbi Soomaali ay maanta u baahan tahay dadka ku jiraana ay yihiin dad casiisiina oo karti leh oo daacadnimada ay ka dhabtaay oo Soomaalinimadu ay ka dhabtaay jecel ummadii Soomaalida in la isku hayo oo la isku soo celiyo dib isku ogolaato anigu xisbigii sidaasaan ku galay waxaan aad iyo aad ugu faanana inaan ka mid ahaa dadkii aasaasay ilaa maanta waan qaranayaa laakiin waxaan soo gaaray mar haddaan siyaasadii soo galay waxaan soo gaaray meel aan dee kala saaro prioritieskayga inaan kala saaro soo dhammaad garan anu waxaan arkay in xisbigii Hiil Qaran mabaadidiisii halkaan ku soconnay lana garan waayay waataanu sayladii siyaasadii xamar waataan geynay waa lana garan waayay soo aad garmaysa markii dambe waxaan noqday uun anigu nin reer waqooyi oo dir ah sida lagu xisaabinayo kolkaas sheekadii Soomaali weyn meel aan dhigna ayaan weynay hadday sidaa noqotay marka waxaan isiri arrimaha ummadda Soomaalida danteedii haddaad ku dhex jirayso de meel kale oo ka gasho waa inaad raadisaa de meel ugu habboon warka waxay noqotay degmadii aan ka imid iyo dadkii aan ka imid ee Somaliland ee aanu doodo naga dhaxaysay inaan doodaasi face to face isa soo hor fadhiisano by the way bisha August 10 halkan waxa ka dhici doona shir weyn
Minneapolis oo arrimaha Somaliland aan kaga warramayo marka adiga iyo dadka idin dhageysanaya waxaan rajeynayaa inay yimaadaan oo dhageystaan su'aalo la isweydiiyo doonta si wanaagsan oo sharaf leh loo wada sheekaysto marka inaan halka tago degmadii aan ka imid ee Somaliland dadkii aan soo waraysto iyaga ay warramaan aniga aan u warramo sida ayaan u tagay waxaan soo arkay waxay hayaan inay tahay wax dhab ah wax ciyaar ah oo afar qof ay wataan amba in yaro Hargeysa ku qayilaysa ay wadato inaanay ahayn ka dhab tahay dadkaas oo ay fahmeen hadday Soomaali wax u noqonayaan goorta dambe oo ay wax keenayaan iyagu hadday dantooda iyo ummadahooga dhisanayaan inay u baahan yihiin oo laga maarmaan tahay inay iyagu calankooga qabsadaan oo ay dhistaan oo degmadooda dhistaan oo wadankooga dhistaan Somalilandnimadu waa dhab taa waa soo ogaad wax la dafiri karo ma ah waxa igeeyay inaan meel walba sidaa u soo maro oon dadkii beeralayda ahaa kuwii kalluunka watay kuwii baayac mushtariga ahaa ardaydii jaamacadaha ku jiray dadkii aan shaqada haysan dumarkii taksiyadii meel walba aan soo maro inaan soo dhageysto oon soo dhandhamiyo oon soo uriyo oon soo arko inay dhab tahay iyo in kale dee waxaan soo arkay inay dhab tahay doodo badani way ka taagan yihiin sida loo soconayo iyo xukunku sida uu soconayo iyo hoggaanka iyo xaqa iyo cadaaladda iyo kartida iyo doodo badan baa ka socda laakiin mabda'a hoose ee Somaliland wax la yiraahdo inay jirto waa dhab waxana keenay iyadoo laga qancay ya siyaasadii Soomaali weyn laga qancay oo wax halaaliyo wax rajaa oo cadaalad iyo karti ku dhisan aan laga arkayn Soomaali weyn dadka maanta gacanta ku haya taa ayaa keentay وقت أب ما صنعي إن هذا شر وين بالقبنا Somaliland كهاليس ما واحد أبيرس هذين humanitarian أو دين عي وحبر الشذا يعاف ماتكي يوحي أصوارتين حكى غوت بس دين عي سياسة يدو كنت هندوت على بدلنا لبض ما كلام مرمان ما كلام مرمان ما كلام مرمان وحنا وكلام مرمي وح كم ده سياسة ميل والبوي كجرتها أنا ما أرج ودن دس oo xaqii dhaqaalaha xaqii caafimaadka xaqii jaamacadaha xaqii technology-ga xaqii baayac mushtariga xaqii siyaasadda dibadda wadan dhis aan siyaasadii ku jirin ma soconayso saadamaad garan oo dee waxa nacuryaamiyey Muqdisho markaanu la tagnay heel qaran waxa weeyi waxaanu doonaynay wadan dhis aniga mabaadiidayda xisbiga heel qaran oo saxay sagaal bay ahay inuu la tagnay sagaalkaas wax ka qabanayna badankoogu waxay ahayn waxa la yiraahdo socio economic questions oo quality of life dadka noloshooda caadiga sida loo soo dhisay nabadgelyadu ugu horeyso laakiin dhaqaale oo shaqooyinkii iyo jaamacadihii iyo siyaasadii dibadda sida loo dhisay marka siyaasadda iyo noloshu ma kala bixi karaan hore wataan u sheego waxaan yiri anigu cilmiyadan bartay dad kale aan ka bartay bari hore laba baa siyaasadda ka baxa ilaahay siyaasadda shaqo kuma leh waayo wax walba isaga xukumo wax walba isaga og iyo xoolaha dameerka amba faraska amba saca iyaguna siyaasad shaqo kuma leh ya beasts and gods ilaah iyo xoola siyaasad ka maarma bini aadamku kama maarmo marka anigu waxaan rabaa arrinta Somaliland inaan isku qayo sida caadiga iskugu jiraan horumarka Somaliland iyo dhismaheega iyo siyaasadeedu sida ay u sii bislaanayso ya ay u sii qurux badnaanayso labadaas waa in la isla wado la sii wado ayaan ka mid noqonaya dadka ka shaqeynaya وقت أب ما صنعي صدقت هاي حسبية كثيرة Somaliland حسبية صو مركه هرب قبيل قاركود لجوا عنيني حسبية ذات وترتمي دون تمر ذات حسبية ده القرن سو براتس كريسي مساء سان ورئيسي كم غلي هون كيبل واحد لأنه ماشي وسير رومتيجين أدونت وسيرنا أدونت رومتيجين مركاته مدحوين النمو وحسبك صوت دورتي والله جاي أبغى نمليني هرتا ورن أو أنو وزير نمو حمرنا ومان دونا هل هرجيسنا ومان دونا هرجيسا specifically وحن أتجي يو تجمد كلامه soo arag jamhuuriyadda oo dhan Soomaaliland waxay ahayd dadkiina soo wareysto oo aan cilmi soo qaato iyagana aan u warramo adduunyada markaan ku soo noqdana aan macnayn karo Soomaaliland waxay tahay halkay ku socoto waxay qabsatay waxa hor yaala challengeska maanta hor yaala inay ka tallaabsato wax ka qabsato waxa soo dhan inaan macnayn karo annaan isku macnayn karo dadka kalena aan u macnayn karo doodaha Soomaali weyn marka lagu jirana dee aan u hadli karo danta Somaliland iyo waxay xaq u leedahay aan u hadli karo si dhab aan ugu hadli karo taasi waa taas marka anigu de shaqo u doono iyo ilaahay mid wanaagsan buu idhagay oo shaqo wanaagsan ma haystaa
taasi waa taas laakiin dee sida loo dhisayo Somaliland leadershipkayga sida loo dhisayo leadershipkuna qof maahe waa dee team ballaaran wey oo quwad leh hil qarna taawun buu ka waday Somaliland maxaan ku raay jamhuuriyadda Soomaalida ee Muqdisho ma yahayn Axmed Samatan madaxweyne waxay ahayd team la yiraahdo hil qaran inay hawsha galaan marka anigu dee waxaan doonayaa intii taagtaydu ay tahay waqtigan imika la joogo intii aan la wadi kara dadka Somaliland dhismaha Somaliland siyaasadda dibadeed ha noqoto gudaha ha noqoto jaamacadaha ha noqoto dhaqaalaha ha noqoto inaan la wada ayaan doonayaa absolutely laakiin Axmed sida ogtahay qof walba uu jecel yahay in la wado laakiin marka aad tiraahdo anu aan wado way marka dhib ku taagan yahay xamar markii aad tiri anu steerinka aan qabto ee aan wado watii lagu yiri awdal baad ka timid ee awdalaad awdal lama oran waxa la yidhi hargeysaad ka timid hargeysaad ka timid waan gartay qoladan hargeysa laftigooda degan soo hadhow dhihi maayaan awdal baad ka timid marka aad tiraahdo steerinkan qabanaya waa qaarkood way oran karaan soo anu wali ma oran oo steerinkan qabanaya ma oran soo hadda ma garan oo taasi de horta waa in la fahmo way uma haysto in ay tahay wax gaf ah anigoo da'dan jooga oo experience kan leh oo waqtigan jooga uma haysta inaan gaf tahay hadduu hunguri siyaasadeed iga galo ummadday in Somaliland inaan ka qayb galo dadkii wadayay inaan ka qayb galo anu waxaan aad iyo aad hoos xariiqaya qof maaha ee leadershipku waa team waa koox wada socoto wax isku og oo wada qaadaysa miisaankaas laakiin de qof waxa laga yaabaa inuu yahay qofka ugu soo horeeyay wajigiisa laga garanay sida Obama oo kale laga garanay wajigiisa hadduu marka ay Somaliland doodeedu timaado oo noqoto meeshan waxa iska lahoon reer gooni ah meeshan isaaq baa iska leh haday noqoto abtiyaashay yaa baryaraha cid ka yeelaysa ma jirto cid ka yeelaysa ma jirto amba dhul bahanta ha noqoto amba warsangeli ha noqoto amba samaroon ha noqoto amba ciise ha noqoto amba gabooye ha noqoto amba Soomaalida kale waqooyiga wada deganay jamhuuriyadda Soomaaliland ha noqoto cid ka yeelaysa taa ma jirto haday taas dhab noqotana way kufi oo dhabarkay ka jabi oo meel qabiil iyo dawlad isqaban karayaan ma jirto waxayna soo baabiyeen isku aragnay way Soomaaliya hadayna haddii aan xamar ka sheegayo lahaa xamar duopoly ayaa laba xaafadood oo sidii laba company wax walba leh ayaa wadanka naafeeyay 350 sanadood dee Hargeysana monopoly xaafad baa yeelan karaysa ma soconayso kuwii ku hamiyaana marka dambe bohol bay ku dhici waxa soo dhamina way isla dumi laakiin anu waxaan qabaa dadka Somaliland intooda badan inay soo bislaanayaan oo ay garanayaan qarannimadu waxay tahay inay garanayaan soo hadda madga jaamacadaha dhalinyaradu inta istaagaan bay ugu oranayeen waa dadka imka post tribal yaa la yiraahdaa individuals waan dhaafnaana ku qabiil wixii la oran jiray jaamacadaha istaagan Hargeysa bartanka ay istaagan waan dhaaf samataro adiga iyo professor baa tahay Soomaha adiga iyo inta kula daa amba kugu dhow diyaar ma u tihiin inaad dhalinyarada sida u raacdaan oo inu dhaafno qabiilka aan dhaafno marka anu waxaan qabaa Somaliland iga xigta ma jirto Hargeysa waxaan 30 kilomitir ka badnayn ayaan anigu ku dhashay jadka jad ya 200 oo sanadood ugu yaraan taariikhdeedii waan haynaa de qofka iga sheegan kara ya ma oran karo qofkaas de Kismaayo tag de amba Muqdisho tag amba Boosaaso tag ima oran karo soo hadda taasi waa mid oo de lahaashaha meeshu xabaalaha ku sheegay laakiin taa waxa ka sii weyn maskaxda iyo qalbiga dadka Somaliland ya intooda badan oo soo bislaanaysa ayaad ka garanaysaa laakiin dagaalka qabiilka lagu baabinaya qarannimo lagu dhisaya waa mid joogta meel walba absolutely لكن احمد صدقتي وان قرتو hadii la yiraahdo qoy waa laga tartaraya Facebook banaan u daawanay safarkaagi iyo markaa tagtay qaar waxay qorayeen cadawgii Somaliland baa mid isu soo dhiibaya bay qorayeen qaar waxay qorayeen ma haduu markuu xil ka soo waayay Axmed Xamar ayuu yimid Hargeysa oo anaga kaadideen u soo cabnay meeshi marka dadku shucuur hadlayaan laga yaabaa levelkooda iyagoo aragtidooda ka hadlay hadda xafladan aad qabanaysan 10 bisha ma Somaliland dibudhiskeedii iyo ka kacay Somaliland hal taageera mise waxa weeye dhibaatooyinka Somaliland haysta dawladda Soomaaliyeed kulli wuu haystaa si dadkan loo badbaadin lahaa
horta dee waxaan lagu qorqorayo Facebook ma lagu qorqoray anu ma galay laakiin waxa lagu qorayo qofku dee xaq buu leeyahay inuu wuxuu doono ku qoro taasi waa dimuqraadinimada iyo albaxnimada ka mid taa waxa ka soo horjeeda ya anu dee cadow Somaliland waligii kuma ahayn anu waxaan isku haystaa qof waligeena isku haystay imikana isku haystaa qof u dhashay Somaliland u dhashay xaqna u leh cidii doonta miiska ha fadhidee dooda inaan wada galno soo aad garmis anu dooda wada galno marka aniga qof iga xigsanaya Somaliland oo ana u leh oo ana kaadi u saaxib ana iska leh ha sheegto qofkaas laakiin de waxaan dhageysano ka yeelaya ma soo garmis isna xaq ay Somaliland ku leedahay ka soo baxana xaq ay Somaliland igu leedahay aan ka soo baxo soo adamaad gar wixii waajibaadaan saa uga soo baxno wixii aan xaq wada leenahayna sida aan u wada yeelano soo adamaad gar taa jawaabteeda waliba waxa si cadeeyay dadkii soo baxay aniga oo wadanka waligay madax ka noqon xafiis aan madax ka noqon shaqo waligay aan ka qaban Somaliland maalintan amuud ka baxay xamar baan tagnay soo garmis haddana waad arkayay wax dad soo baxay ceerigaabo ilaa siilciyeenta u dhaxaysa soo adamaad gar aniga dadkaas ay ma muuqda xabada Facebook ku qoraysa kaadaan u soo cabaan bacdawgii Somaliland ba soo noqday xaynkaas waxaas iima tirsan waxa ii tirsan dadkaadii soo baxay ummadii ay aragtay adduunyaduna ay aragtay wada darashada iyo danta taariikheed ee iskaaya badda in wax wada qabsano soo ceerigaabo ilaa siilca soo adamaad gar taas aniga muuqda jawaabtuna waa taa weey soo aad garanays now shirkan bisha August 10-keega waxa weeye dawaan warrami waxaan u warrami anigoo ku hadlaya laba af oo wada socda as a scholar de qof wax darsa oo wadankana darsaya in badan sidii aan u soo arkay oo de balance sheetka waxaasa la qabtay waxaasa dhiman sidaas looga bixi inaan warramo soo adamaad gar warramadaasina dabadeeto in ay ku xigaan de wixii su'aalaye dadku i weydiinayaan aan ka jawaabi karo qaar badan baa laga yaabaa inaan ka jawaabi karo aan aqoontooda lahayn aan ka jawaabi karo wey marka taasi haddii ay ka dhalato xiise cusub oo dadku Somaliland ay u qabaan de way hagaagsan tahay aniga la tahay haddii warkan bixinaya oo noqon mid dadku ay ku qancaan de waxay la tahay taasi inay tahay mid ay wanaagsan inay tahay hadday ku qanci waayaanna de inay su'aalaha ay weydiiyaan oo marka iyagu ay meel kale ka doonaan warka loo qanciya ayay noqonaysaa anigu waxaan ku dadaalayaa wixii aan soo arkay xaqaygana inaan sheego iyadoo cad wixii la qabsaday iyo waxa dhiman iyo wadada la marayo laakiin shaki kuma jirade anigu inaan noqday horena u ahaan jiray maaha wax cusub maaha waligayba waxa bogagan qoray wada ka muuqata si gooniya in aniga Somaliland ii taabato anu ma qarsan waligay maan qarsan waxaanu ka wada doodi jirnay waxay ahayd siyaasadda sidee loo maamushaa halkee la maraya taariikhda iyo siyaasadda ayaanu ka wada doodin soo adamaad gar tiina waanu isku soo dhawaanay imaka waayo waxay arkayeen oonan anigu saa u arkayn baan soo arkay xamaran ku soo arkay soo adamaad gar iyaguna waxaanay arkayn oo laakiin ay u baahan yihiin inay arkaan ayaan Hargeysa Burciyo Berberi iyo Ceerigaabo iyo Boorama ku soo arkay marka waa sheeko cusub iyo wada cusub iyo ismaqal cusub iyo isfaham cusub su'aalaha kulay ay ku sii weydiin doonaan xanta magaalada ilaa waan ku jirnaa haddii aan ku sii hor dhigno Axmedow hadda ma Somaliland baad noqotay way ku weydiinayaan taas horta way taala oo Axmedow sanadkan Somaliland baad noqotay talabaad kale waxa weeye wadankii Somaliland inuu go'o iyo intaas oo sano ay dhahayn waan ugu eenaado koonfurtan aanu aragnay wax lama qaybsan karo yaa soo aragtay taana ma ku raacsanta wala su'aalood oo aad waxaan ma hay wala su'aalood aad u wanaagsan way waana la isku leeyahay anigu islaamnimo iyo Soomaalinimo waa la igu dhalay meel aan uga tagana garan maayo haddaan islaha ka tagna meel aan taga garan maayo soo aad garmis oo de hadalka ugu horeeyay waxa weey magaca Axmed Samatar oo magacaasi waa islaam ama muslim baa tahay de waana hay waana la igu dhalay oo de xageed ka timid de Mareykan baan hay laakiin de asalkaagu magacani Len John Smith ma ahe xageed ka timid waxaan ka imid East Africa Soomaali baan hay way caddahay Soomaalinimo iyo islaamnimo waana heel qaran wuxuu ku dhisnaa way kuna dhisan yahay meel aan ka tagayo ma garanayo
inaan ka tagana ma doonayo laakiin waxa weeye siyaasadda sida la isku maamulayo Soomaali way badanta sidee la isku maamulayaa bay noqotay shan baynu ahaan jirnay caalamku shan buu yiri ay Soomaalidu Sooma absolutely Djibouti waa Soomaali ayaa ahayd côté français de Somalie baa la oran jiray absolutely wadan gooni noqotay way xukuntaa Soomaalinimadii Islaamnimadii kama tagin Ismaaciil Umar Geelle Soomaalinimadii Islaamnimo kama tagin laakiin waa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti absolutely soo degan zone 5 dad baa u taliyo Soomaali amaanta soo degan Islaamnimada Soomaalinimo kama tagin laakiin waa reer Ethiopia ayay noqotay Kenya NFD waa sidaas leeg labadii isku soo haray haday isfahmi waayeen oo la isku keeni kari waay anagu inaan isku keenaan doonayno si wanaagsan isku fahmaan heel qaran taas ay hawlahayga kamid ahayd waa la nala garan waay xamar markaan geynay waa la nala garan waay cid ku dhageysitaan weynay soo garmays marka waxay noqonaysaa halkeed ku dambayn marka anigu de waligeybana waxaan ahaa de qof Somaliland ka yimid waan ahaa jed baan ahaa Soomaaliga siyaasiyana iyo ismaamulidna de hadii la nala garan waayay qarankii weynaa sida loo dhisayo loo soo celinayo oo xisaabta halkii hore uun laga miisay ee ahayd duopoligi labadii xaafadood ee wax walba iska lahaa ee iyagu isku maqnaa in la sii wado saddex iyo konton sanadood dambe dabka soo kulaala ma soconayso kolka anigu waxa noqday siyaasiyan qof goostay Somaliland waxaan la qaban karayo inaan la qabto Somaliland guusheedu haday keento de Soomaali ummadii Soomaalida mar dambe isku soo noqoto ahlan wa sahlan waa de khayr ilaahay keenay laakiin Somaliland iyo dadka ku nool noloshooda looma xidhayo loonama fadhiisinayo intay kala miirmayso Muqdisho iyo koonfurta Soomaalidu 350 sanadood ayay dabka soo kulaalayeen soo damaadgan de rajaha la tuso dadka Soomaalidii waqooyiga xamar rajaha laga tusay dadka maanta caalanka haya rajaha tusaan in xisaabtii hore ay bedelantay oo vision cusub yimid oo karti cusub timid oo cadaalad cusub timid anigu taa wax u dhow ilaa caawa ma arkayo soo degan oo dawladda la dhisay iyo dadka la magacaabayo iyo sida loo dhisay aad ka garanaysa dadka reer Somaliland marka dadkii abuuray jamhuuriyadda ee ugu horeeyay way dhagaxii ugu horeeyay dhigay amba laascaanood ka yimaadaan iyo ceerigaaba amba boorame iyo saylac iyo ka yimaadaan burciyo barbari Hargeysa soo maad gar hadii la garan waayay taa inay is ururiyaan oo socdaan oo is dhisaan ya oo gooni u sameystaan waxay sameysan karaan ya danta baday ayaan anigu qaba waxay iyaguna iska goosteen maaha danta baday taariikhda baday waqti aad ma satay waxa mararka qaar kood la yiraahdaa Somaliland waxa badana u dhundolol Ethiopia dekadii berbera iyaga haysta lacagta ugu badana de birba laga isticmaalaa ha u badnaadaan dhinaca awdaliyo inta joogtay maxaa soo indheys anigu ma arag meel lacagta Ethiopia ay suuqa wadan tahay oo dadku ay isticmaalayaan meel walba ma arag laba lacag oo baan anigu arkay anigana jeebkayga ku jirtay ya in ka bil ka badan baan yaan wareegay lacag Somaliland shillinkeyga oo by the way markaad shillinka Somaliland iyo shillinka Soomaaliya aad is ag dhigtay dollarka ku qiyaasto kan Somaliland ba ka qiimo weyn soo hada Soomaad garan oo 6,000 oo shilin dollarkii meelaha soo maray kana markii ugu dambeysay 220,000 baa la sheegay soo hada maad garan xagga Muqdisho lacagta Somaliland iyadoo ay samaysatay iyo dollarka labadaas ayaa ugu weyn waxaan indhahayga ku soo arkay ee suuqu uu ku kala socdo soo damad garan laakiin de xiriid inuu ka dhaxeeyo especially Addis Ababa iyo Hargeysa oo darisnimo goonihi ay ma ka samaysatay way cadahay oo de diyaaradda badayaan waxaan Addis Ababa tagay Addis Ababa ka raacay Ethiopian Airlines oo igeysay Berbera soo degarmayso xafiis weyn ku leh soo damad oo traffic maalin walba sidaas ayuu wada socdaa Berbera portkeyga wax ka soo dejinta ilaa Jigjiga xaqana sidaa uu socdaa inuu fardooyin kale la furana waa laga yaabaa waxaan qabaa dadka Somaliland in ay dantooda tahay dhaqaale ahaan dhismaheega dantooda inay tahay in ay aad iyo aad u dejistaan iyadoo cilmiyeysan sida ay uga faa'iideysanayaan darisnimada Ethiopia la leeyihiin 80 milyan oo qof baa meesha ku nool oo dad badan ay Soomaali kamid aniga family-gayga baa ku nool Jigjiga iyo Awbarra iyo Dirdhaba iyo ilaa badooyinka Galamso badaysa ya ku nool darisnimada sida looga faa'iideysanayo in xisaabteedu ay xarfadeeda Somaliland la timaado waa laga maarmaan
darisnimadaana de waxa kamida xiriirka gaadiidka oo Ethiopia waxay u baahan tahay xeebo ay xoolaheegii ka dajiso oo adduunyada kala baayamitri la yeelato inaku waxaynu u baahanahay dadka Soomaaliland hadii la yahay waxa loo baahan yahay sida loo helayo in laga faa'iideysto suuqa ballaaran ee 80 milyan oo qof ah ya suuqaasi sida looga faa'iideysanayo waa market xoog leh waa laga maarmaan in marka xiriirka laga shaqeeyo oo waliba isagoo cilmiyeysan si wanaagsan loo shubo oo labaduba ay baraadaan oo ay kala faa'iideystaan waa laga maarmaan laakiin de Soomaaliland inay noqoto maxamiyad yar oo cagta hoosta ugu jirta Ethiopia waa khasaare noqonaysa uma malayn maayo dadka Soomaaliland inay taa ogolanayaan وهاك داود هالكان دقة داونسان وعسكري أمريكا برنامج كي أنو يتكسر دينشن ويجا أمريكا أنو جمانت اللايف هالكان وشوفنا مالن جمعة رمضان أي تهاي دات كان أي وذا سومي روتي ساعدنا أي تهاي هذا اللي يقولوا إلا اللحدي هذا واخد دون سدود أن يتكسر غيب جشوا بروفيسور أحمد سمثر ومارتين هوجا وروتي كي يمد قبل هذا ويجا سوماليا كرهان قبل كسوماليلا نمبر كسوع كرتوا 612-746-0553 أي سوع كرتا خد كتلفونك هديات فيسبوك أما قبل كلا دقت هنا وأنا سوع كرتا نمبر ك 612-746-0553 وهاك أحمد سيد وقتها وده هذا الباو السعودي دولة الفدرالك يا دولة الصومالية وده هذا اللذاس حاجة كنا بيدونا بكرة هاي هديس الصوماليلان حتى إيرادان أحمد هذا بروفيسورة دكان مقوية أمريكا UNT وأقدو يا مريكانكي أرنتها نقل غيب قاعدو أنا أرتو كل يوم مد وان ويجا عنتي واجرت وحن إمك قارين ما هالسعودال كي هو سيئد كي لكن ويجا عن واجر وحوي سوماليلاند إنت وحلق بنكره حقا دبعة رنعة إنت لق بنكره إن لقبته dadkii aniga sida ii soo dhaweeyay caadiga magaalooyinka yaryar labada boqol qof ay ku nool yihiin aad u fog joogay la soo baxay sawir iyo salaan iyo qosol la soo baxay waxa weeye mas'uuliyad cusub iyo abaal cusub oo aanan marnaba ka baxsan karin marka sidaan ula hagaajinayno ula shaqaynayo oo ay ku jirta adduunyada sida loogu macnaynayo qadiyada Soomaaliland waxay tahay tadabta waxay tahay inaan qaybteeda ka qaato waajib ay ku tahay واجب يقطع واي هل كان كيم إذا كل شيء وي يدك يعني جاي أبوره هل كي يكونوا ليه وي واجب يقطع هاي تدي وناكسني دي يدك أنا سوار نين سوى فهمي قضية دي سنسوى فهمي واجب يقطع دنت الصومالية مركز دم إني تاعي إن Somaliland أي ديسنتو أي بدادو أي هروس صوت now وده هذا الك Somaliland هي Somalia وده هذا الكيكو أنا جو حنقبض دي لقى مارمان وده هذا الكاسينو يه أما هل هالشيء أو ده يونيون عصب هلا كانوا ثلاثة أما هل هالشيء إن سوى ناكسن لوكالة تقول الله قرطه يا إنت ولا لماذا الصومالي لماذا جود إيو إسلام لماذا جودي أي نجد حيسو لكن ده لبا ودن أو لبا الدولة دود أو جوني إسكو كلام معمولي إن ليه ولا بدأ تشويسكو يا لا أنا قصدي أنقب تدم waxay u baahan tahay aad iyo aad hawl weyn bay u baahan tahay ta kaalanada ka sii daranba haddii la isku soo noqonayso la isku soo noqonay anu waxaan qabaa mas'uuliyadda weyni inteeda weyni waxay saaran tahay horena waanu sheegay intaana safarkan gelin laba la iskuma helayo inaad calankii weynaa ee Soomaalinimadana haysato xisaabta siyaasadeed ee habeen iyo maalin aad ku dhaqmaysaana ay noqoto duopoligi labadii xaafadood iyaguna wax walba isla walaaqanaya ay noqoto labada la isku helayo calanka ceeb iyo foolxumo ayuu taa ka qaaday waxa inta ka sii fogee sii socdaana waa ceeb inta ka sii weyn marka dadka calanka weyn ee Soomaalinimadii la isku ogaan jiray sita waa inay keenaan ya fikrad iyo dadaal iyo karti iyo maxaan ku rahay vision cusub ya waxa soo noolayn kara hadii kala calanka in la iska dhigo weeyo museum-ka inta la dhigo te waqti kale amba la sugo amba taariikhda museum-ka global way ahaan jirtay la yiraaho anu dadka Somaliland marna kuma dhaliilayo inay qarankii weynaa Soomaali isku soo noqodkay inay hawshooda ka dhigtaan imaka ku dhaliilay maayo waxaan ugu dhaliilay waxa weeye deeqsinimadii ugu horeysay iyaga keenay 1960 iyaga keenay sidii xeedadii muqmadii iyadoo wada xidhan oo qurux badan baa xamar geeyeen ilaa maanta waxa la keenay Hargeysa anigu ma arkayo ilaa maanta waa 53 years waxa la keenay ma arkayo
xasan sheekh dhowaan wuxuu yidhi somaliland arrinteedu waa iska jibbo ya xamaasad iska weeyaan buu iska caynkaas dee ninaan waxba ogeyn ilaah waa cadaan bay Soomaalidu taada xasan wuxuu ku hadlayay malaha ma ogade soo adamad anu waan tagay isagu muu tagin dhulka absolutely anu waan tagay I don't know isagu hargeysa xitaa inuu tago maray iska daa dhulka kale marka waxa weeye haddaad calankii weynaa baan hayaa leedahay inaad sidaa u hadashaa waxay ku tusaysaa yani waxa irdeeyay dadka Soomaaliland ana anigu kamid ahay ku irdeeyay taasa kamid maaha xamaasad oo qoran xamaasada horta de kelmadda la yiraahdo hadduu qofku garanayo waxa weeye chapterka ugu horeeya jacaylka oo waxa jeceshahay umbad xamaasadu haysa absolutely soo dhammaad gar xamaasadu marka waxa weeye talaabada ugu horeysa jacaylka waxaan rajayn lahayn haddaanu hiil qaran xisbiga hiil qaran in xamaasadaas oo kale ku aragno Muqdisho xamaasada kuma aan arag soo degaramis xamaasadana waxa ka si dambeeya dadka Somaliland oo ay ka dhab tahay Somaliland nimadu ay ka dhab tahay ayaa ka dambaysa waxaan soo arkay dumar 70 jir ah oo daabiyada yarar ku nool oo ay degan yihiin malaha 200 300 oo qof oo kula Somaliland maanta ya hawsheedu waa mid aan u wada jirno doonayno hore u dhaqaajo ya soo garmis marka dadka calanka weyn sita hawshooda ha ka soo baxaan hadduu qaran soo noqonayo Somali Republic loo oran jiray hadduu soo noqonayo anu dadka Somaliland waxaan ku leeyahay horena aan ugu sheegay idinku albaabkaas ha furnaa wixii leeyahay yimaada si wanaagsan oo fikrad leh u dhageysta uga fikira laakiin hawsha maanta idin hortaala waxa weeye Somaliland sida loo dhisayo way hawshan hortaala waxa weeye dhaqaalaheega caafimaadkeega iskuuladeeda siyaasadeeda dibadda technology-geega hawlaheega hore u socodka Somaliland sida loo dhisayo ta hortaala maanta dadka Somaliland ku nool elite-keega iyo dadkeega caadiga taasa maanta hortaala taa aan waxaan qabaa inay xoogooga saaraan kartidooda saaraan taasana laga yaabaa inay kayd ummadda Soomaalida mar dambe inay u noqon karto laakiin haddii Soomaali weyn ay soo noqonayso shaqadeedii waxay u taallaa kuwa sita calankii weynaa Soomaali weyn ayay u taallaa amba calanka ha iska dhigaan oo iyaguna dee waddo kale ha maraan amba ha ka dhabeeyaan dee calanka aad ba maasantay professor Ahmed Samatar siyaasaddu dee waxa ku jira siyaasad dhaqaalaha jira oo economic power oo la isku abuse gareeyaa jira yes intii aad maraysay gobolada gobolna inay cirka galeen oo buumin noqdeen oo dhaqaalihii Somaliland la geliyay gobolana ay dam yihiin ku soo aragtay daalad dareen halka ka jirto waxaan soo arkay horta wax badan oo aad ku farxayso waad arkaysaa raad dawladeed oo meel ba yaalaad arkaysaa anu xamar markaan joogo in ahaa candidate hodelka kamaanaan bixi jirin adigoon askar wadan oo askarta waliba aad u kharashka bixinayso Somaliland gees ilaa gees ayaan maray saq dhexe subax duhur goor walba aad marayso gees ilaa gees qof qorisita oo aan ahayn amba military amba bilays ma arag guriyaha wax u yaalaan dadka ma og laakiin suuqa wala ma soo bixi karto meel walbana administration dawlad iyo hawl yar ayaa socota intay doonto taagto ha noqoto laakiin raad dawladeed bad meel walba ugu tagaysa laakiin waxaan soo arag waa runtaasoo waxa jira imika laascaanood area oo kala dadka anigu maan tagin laakiin warkay soo gaaray iyo information-ka la soo saaray dadkuna ay og yihiin waxa weeye dhaqaale ahaan biyaha dhaqaalaha noloshii hoos bay u taallaa oo waxaan ka mid ahay dadkii marka wax la ururinayo waan bixiyaa intii kartidayda soo degmays degmadan la yiraaho awdal waxa la leeyahay haddii la eego iskuuladii iyo caafimaadkii iyo biyihii wacaynkaasa waaba ugu horeysa waa la leeyahay soo degmays inkastoo iyaguna wax badan tabanayaan dad badan oo bartanka ku nool inta u dhaxaysa waxaan ku raacay burco iyo berberiye hargeysa bartanka ku nool ya oo daranyaysan ayaan indhahayga ku soo arkay marka dad badan oo daranyaysanna waan soo arkay dhaqdhaqaaq horumarna wuu jiraa laakiin wax badan bay Somaliland u baahan gabagabadii barnaamijka la soo gaaray waqtigan shirka goorma la qabanaya xagees lagu qabanaya 10ka bisha waxa la qabanaya bisha 10ka waa sabti saacada iyo halka lagu qabanayo waxaan soo saari doonaa ilaa bari sahan dambe saakuun baa la soo saari doonaa laakiin dadku ha calaamadsadaan bisha August 10keega waa sabti galinka dambe fiidkay kulay noqonaysa waqtiga iyo halka lagu qabanaysa waan soo saari doonaa waanan waramayaa
ya wixii la qabtay waxaan la qaban waxa maqan halka laga baarayo iyo sida loo hagaajinayo waxa soo dhamaan yaan isku day inaan ka warramo iyo su'aalo la isweydiiyo ya tan wax kala faa'iideysan dadku ha yimaadaan bay la tahay